Asalaamu calaykum asxaabtayda kusoo dhawaada channelka halkan waxaan rabaa inaan idinkaga sii wado parenting styles ama waalid noocee baa tahay casharadeeni ahaa hadda qeybtan waa qeybtii afaraad haddii aad inta kale soo daawanin waxaan rajeynaa inaad kuwa kale soo daawatid si aad u fahanto meeshaan ka hadlayo qeybtan waxaa la dhahaa neglectful parent ama waalidka caruurtiisa dayaca haddii aan nagu cusubta waxaa idin leeyahay soo dhawaada subscribe iyo like iyo comment ha naga ilaawinin insha allah haddii aad nala joogtan waxaan ku leeyahay soo dhawaa waa mahadsantahay soo noqodkaaga videoga isku day ilaa dhammaadka inaad daawato haddii aad rabto inaad fahanto waxaan ka hadlaya insha allah neglectful parent ama waalidka caruurtiisa dayaca waa style ka mid ah waalidiinta qaabkay caruurtooda u koriyaan qaabkan loo yaqaano neglectful parent ama waalidka caruurtiisa dayaca qofkaas markii aad tahay adiga caruurtaada ma siisid needs ama emotional needskooda kama soo baxdid badanaa ilmahaaga waxba kuma darsatid feedback ma siisid waxyaabo maskaxdooda u roon iyo waxaasna waad ka mashquulsan tahay qofkan waxaa lagu garanayaa waxyaabahay caruurtiisa ka rabaan badanaa ma yaqaano qaabka ula dhaqmi lahay waxaasna waxaa keeni kara inay tahay qofkaas qof la soo kulmay sidaan oo kale hadda kahor isaga lasoo dayacay oona hadda garanaynin qaabkuu caruurtiisa ula dhaqmi lahay ilmahooda support ma siiyaan ilmahooda jacayl uma muujiyaan ilmahooda maskaxiyan kalama socdaan ilmahooda markay hor taagan yihiin way ka mashquulsan yihiin marka waalidiintan ciyaalkooda way si maaragtay maskaxiyan emotionally way ka fog yihiin ciyaalkooda lama ciyaaraan waxba kuma darsadaan markii ay la joogaanna maba siiyaanba supervision ama maaragtay inay og yihiin waxa meesha ka dhacaya jacayl ma tusaan ciyaalkaas iyo mataqaanaa hab la siinayo ilmahii waxyaabahaas dhinacaan dhanka ma jiraan neglectful parent markii aad tahay qofkaasaa tahay qof ku mashquulsan noloshiisa aan caruurtiisa waqti u haynin marka waa laga yaabaa inaad tahay waalid mashquulsan shaqadii ku mashquulisay ama waxbarasho ku mashquulishay laakiin waalidiinta sidaas u mashquulsan still way noqon karaan waalidiin fiican markay caruurtooda waqti la qaataan maskaxiyan caruurtooda ka dhisaan emotionally ay available u yihiin ama emotionally caruurtooda ay la taagan yihiin wax walba ilmahaas la tacaalayaan ay ka caawinayaan laakiin waalidka markaad tahay noloshaadii aad too much ku mashquulsan tahay ilmahaaga hortaada taagan xitaa uma jeedid sida pictureka halkaan aan arkayno kale halkaan aan arkaynaa ilmihii yaraa halkan taagan sawir yaray haydaa ay rabta inay tusta waalidkeed laakiin aabihii waa ka mashquulsan yahay umaba jeedaba telefoonkiisa ku mashquulsan yahay ya waxyaabahaas oo aada u yareer oo kalea ka mid ah examplada lagu arka waalidiintan badanaa ciyaalkooda way u diyaariyaan meeshay seexan lahaayeen iyo waxay cuni lahaayeen laakiin kama helaan nafsiyan ilmahaas waxay u baahnaayo maskaxiyan waalidiinta qaar xitaa waxaa laga yaabaa ilmahaas noloshooda inayba ku jirin inayna ku jirin because dhibaato dhacday darteed inay labadii waalid kala tageen ama xitaa haddii isla joogaan ilmahaas unavailable ay u yihiin ilmahaas maanta oo dhan emotionally support lama siinayo marka ilmahaas waa iska keligiis badanaa wuxuu dareemayaa ilmahaas inuu keligiis yahay inuuna haysanin qof uu la sheekaysto inuuna la haysanin qof oo talo siiyo marka ciyaalkan badanaa dhibaatooyinay la kulmaan hadhowti markay weynaadaanna socially dadka ma yaqaanaan qaabkay ula macaamili lahaayeen dadka qaarkay siday ula dhaqmi lahaayeen because dhaqankii dhan lama soo barin ya waalidiintan markii aad tahay neglectful parentka markaad tahay ciyaalkaaga waxbarashadooda lama socotid meelaha goobta wax lagu barta ma tagtid macalimiinta ciyaalkaaga lama socotid wax aad ciyaalkaas noloshooda aad kala socoto ma jirto ya
waxyaabaha dhibaatada keeni kara sidaan oo kalena waa inaa adiga ama sidaan oo kale kugu soo dhacday ama in stress badan ku haya haddeer oo therefore aadan garanaynin qaabka ula dhaqmi lahayd ilmahaaga. marka haddii aad tahay waalid sidaan oo kale kusoo dhacday oo isaga waalidkiisa soo dayacay, 2 choice aa haysataa. choiceka aad markaan halkan dooratanna waa inaad sidii adig kugu soo dhacdo kale inaad dooratid oo ilmahaaga aad ka maqnaatid sida adigaba noloshaada looga maqnaayo. marka waxyaabaha ilmaha dhibaatada ay ku reebi karto waalidkan markuu ciyaalka haysto waa dhibaatooyin aad u fara badan hortii. dhibaatooyinka aad u farada badan waxaa ka mid ah ilmahaas waxbarashadooda iyo noloshooda dambe markay weynaadaan inay cabsi horta noloshooda cabsi ay ku nool yihiin, because qofna ma dhaho geesiyaa tahay, qofna ma dhaho waad wanaagsan tahay, qofna ma dhaho sidaan iyo sidaan wax loo saxaa hadday wax ka qaldamaan. waxbarashadoodana kuma aha dad wanaagsan. academically ilmahan aaday u liitaan. waxyaabaha waxaan keenaynana waa emotional support inaan ilmahaas la siinin, inaana jacayl la tusin, inaana maskaxiyan loo caawinin, social skills dhan ma haystaan. waxaasna waxaa u sabab ah waalidkii ciyaalka soo dayacay. marka ciyaaladan badanaa ilmaha kale connection lama samayn karaan emotionally, oo hadhow markay weynaadaan lamaana haddii ay yeeshaan badanaa iskuma kalsoona mataqaanaa waxyaabaha ay noloshooda ay dooranayaan ama decisionada ay qaadanayaan waa waxyaabo ay isleeyihiin iska sameey, laakiin ma fahansana qaabkay u sameynayaan iyo waxyaabaha ka dambeeya iyo kuma socdaan jadwal, kuma socdaan. ilmahan waa weligood ilmo soo bartay inaana jacayl la helin ama inaana jacayl la qaadanin ama inaana jacayl la heli karin ama waxyaabahaasoo kale kusoo koreen. marka maba yaqaanaan qaabay qof u jeclaadaan, ma yaqaanaan jacayl wuxuu yahay, ma yaqaanaan qaab loo fakaro, ma yaqaanaan qaabka maskaxiyan loo fakaro oo markaana dadka loola dhaqmo. waxaas dhan dhibay ku tahay. marka ciyaalka dhibaato aad u weyn ay ku leedahay noloshooda hadda ay ku jiraan iyo noloshooda markii ay weynaadaan. markii aad waalid tahay ciyaalkiisa dayacay oo aanan ka warqabin oo waxba ku darsanin mataqaanaa noloshooda waxbarashadooda waxba kala soconin, iyaga emotionally support aanan siinin, ilmahaas way dayacan yihiin. marka maxaa lagaa rabaa adiga qofkan haddii aad tahay maanta waqti aa haysataa, fursadaa haysataa inaa isbedeshid, fursadda aa haysatid inaa isbedeshid oo inaad waxbaratid oo ilaahay hadduu caruur ku siiyey oo ilaahay waalid kaa dhigay, maanta waxaa haystaa inaad fursad iska bedeshid haddii aad tahay waalidka caruurtiisa dayacay. mar walba waad isbedeli kartaa, waxbarashaadna samayn kartaa. waxaa jira waxyaabo la qaato parenting training oo kale ama koorsas la qaataa jiraan, kalaasyo la tagaa jiraan. adduunyada meeshaa ka degan tahay ku xiran tahay. haddii aa u baahan tahay inaa ani ila soo xiriirtid waa ila soo xiriiri kartaa insha allah. waxyaabahaan u baahanahay inaa iska qabatida waxay tahay horta first is fiiri maxay tahay sababta aan uga maqanahay ilmahayga noloshooda, maxay tahay waxa aan ciyaalkayga aana emotionally aanan u caawin karin ama aanan ula joogi karin, maxay tahay waxyaabaha i mashquulinaya inaan ciyaalkayga aan dayaco. waa inaad isweydiisaa su-aalahaas markaa isweydiisid uun kadib aad caawinaad raadsan kartaa. waxyaabo kugu soo dhaca adiga haddii ay yihiin qadar allaah way dhaceen, adiga waxba kama qaban kartid wax kugu dhacay, laakiin maantaad nooshahay, maanta ilaahay waalidkaa dhigay. marka waxaa loo baahan yahay insha allah inaad caawinaad raadsatid meeshay rabta ha noqoto, meeshii adiga iyo caruurtaada iyo familkaaga wixii isku kiin soo dhaweyn karo dhan inaad ka shaqaysid adigoo u niyeysanaya wanaag, niyadaada ku socoto wanaag. awlaadaas ilaahay mas-uulka kaaga dhigay oo ilaahay ammaanada kaaga dhigay oo ilaahay ku siiyey oo ilaahay hadiyadaas uu ku siiyey inaad ka faa'iido, iyagana aad mataqaanaa ka soo saarto dad waxtar leh oo maskaxiyan iyo qalbiyan aad usoo dhistay, adigana aad noqoto waalidkii ay rabeen ay u baahnaayeen insha allah. marka haddii aad aragto inaad familkan tahay ama qofkan inaad tahay
caawinaad degdeg ah u baahan tahay because caruurtaada waxay ku sugan yihiin dhibaato. waalidka isbeddel mar walba wuu samayn karaa. maalin walba maalinta ka dambeysa fursad waxaa u haysataa daqiiqad walba noloshaada waxyaabihii xumaaday inaad saxdid. waxyaabaha kaa xumaaday inaad saxdid markaa isku daydid oo jidkaas aad qaadatidna ilaahay subxaana wa tacaala wuu ku saacidayaa. meelahaad u baahan tahay inaad wax ka qabsato noloshaada ka fiiri, awlaadaadana u taagnaaw. awlaadaada u taagnaaw biidnillaah, mar walbana u duceey. ciyaalkaaga u duceey, naftaada u duceey, reerahaaga u duceey. wax walbo ilaahay subxaana wa tacaala wuu kula garab galayaa. adiga isbeddelka samee. weligood haddii kale caruurtaada way kaa dayacsanaanayaan. adigoo hadda adduunyada joogo fursad u leh inaad caruurtaad si fiican u korisid, ha ka dooranin wax kale. waxaan idin rajaynayaa inaad ka faa'iideen videogan. haddii aad u baahan tahay inaan coach kuu noqdo waa ila soo xiriiri kartaa. numberkayga wuxuu ku yaalaa videogan hoostiisa insha allah marka adinka idinka warsugaya commentna iisoo qora maxaa ka faa'iideen videogan. waa ogahay bulshada soomaalida problemkan inuu na haysto, waxaana rajaynayaa inuu isbedelo. meel walba ciyaal soomaaliyeed way ku dayacan yihiin. biidnillaah waxaan rajaynayaa awlaadaas ilaahay mas-uuliyadda naga saaray waalidka u taagnaada inuu ilaahay naga dhigo. dadka wax fahansanna waxaan rajaynayaa inay lasii sheergareeyaan walaalahood kale. informationkan hal qof oo adigaad u sheergaraysa haddii uu ka faa'iido ajirkeedaad leedahay. aad iyo aada u mahadsantihiin. subscribe ha naga ilaawin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.